السلام عليكم أصحابتي كسر دوادة جنالك إسماعيل عبد الله وررك هادنا سو غاري مغالada Baydhabo ayaa sheegay in dagaal culus uu ka socdo qaybo kamid ah magaalada kaas oo u dhaxeeya ciidamada kala taawacsan dhinacyo kala duwan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa loo yaqaan badbaadada Koonfur Galbeed ayaa la sheegay in ay la wareegeen xaafado ka tirsan magaalada halka ciidamo kale ay dib u gurteen dhanka madaxtooyada faafahinta wararka iyo wax ka socdo Baydhabo hadana la soco wararka hordhaca waxay sheegayaan in dagaalku uu qarxay saacadii la soo dhaafay kadib xiisad horay u jirtay oo dhaxaysay dhinacyada isku haya awoodda dagaalka ayaa si lama filaan ah ugu bilowday xaafado ku dhow bartamaha magaalada goobo ay ku sugan yihiin ciidamo kala duwan dadka deegaankaas ayaa sheegay rasaas culus iyo qaraxyo isdaba joogto ah loo maqlaayay si zaid ah ila kala duwan ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay horumar ka sameeyeen dagaalka ciidamada badbaadada Koonfur Galbeedna ay la safan yihiin dhinaca kale ciidamada taawacsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa dib u gurteen gaar ahaan ciidamada taawacsan Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa la sheegay in ay gurteen dhanka madaxtooyada Baydhabo tani waxay muujinaysaa in dagaalku uu galay marxalad adag warka ayaa xaqiijinaya in dagaalku lagu isticmaalayo hub culus qoryaha waaweyn iyo madaafiic rasaasta ayaa laga maqlayaa inta badan magaalada taasoo keentay cabsi xoogan oo soo wajahday shacabka dadka qaar ayaa bilaabay in ay ka cararaan guryahooda in ay raadsadaan meel ammaan ah xaaladda shacabka magaalada Baydhabo ayaa aad u cakiran warka laga helayo gudaha magaalada waxay sheegayaan dad badan oo ku xaniban guryahooda ganacsiga oo istaagay isku socod oo gabi ahaanba hakad galay qaar kamid ah dadka deegaanka ayaa sheegay ma jirto meel ammaan ah oo si sahlan loo aadi karo ilo wareedyo ayaa xaqiijinaya in dagaalka weli socdo aan la kala adkaan mararka qaar uu si xoogeysanayo ciidamada ayaa isku dayaya in ay xoojiyaan goobaha ay qabsadeen in ay difaacaan meelaha muhiimka ah dagaalkan ayaa si weyn u saameynaya xaaladda siyaasadeed ee dalka waxaa laga cabsi qabaa in xiisadu sii kororto in ay saameyso gobolada kale in khilaafka siyaasadeed uu sii qoto dheeraado arrintan ayaa ku soo kordhaysa xilli hore ay u jireen khilaafyo siyaasadeed oo u dhaxeeyay dhinacyada kala duwan bulshada Soomaaliyeed iyo dadka dibadda jooga ayaa si weyn ugu walaacsan xaaladda Baydhabo waxaa jira baaqi nabadeed codsiyo ka saabsan nabadda joojin walaac ku saabsan badbaadada shacabka marka soo koobo dagaal culus ayaa ka socda Baydhabo ciidamo kala duwan ayaa isku haya magaalada xaafado ayaa la kala qabsaday shacabka ayaa wajahaya xaalad adag dagaalka ayaa wili socda wixii wararo cusub ee soo kordha si degdeg ah ayaan idin la socodsiin doonaa idinkana YouTube-ka subscribe noo saara aadaan u mahadsantihiin